بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعنا ونكسن داوديال مeel kastoo aad joogtaan waa mar kale iyo barnaamijkeena falanqeynta xogta caalamka waa 21 bisha Maarso sanadka 2024 Ramadaan Mubaarak. Daawadayaal barnaamijkeena qaybtan haddii Allah awood leh uu raali ka noqdo qodobada aynu diradda ku saari doono ama aynu ku falanqeyn doono waxaa ka mid noqon doona Ruushka oo weerarkii ugu cuslaa bilooyin kadib ku qaaday magaalada Kiev ee caasimadda waddanka Ukraine, bartilmaameedyada uu bartilmaameedsaday khasaaraha ka dhashay dagaalada ka soconaya dhulka Ukraine iyo waliba sidoo kale isbahaysiga Moscow, Tehran, Beijing ee badweynta Hindiya oo noqday khatar dhab ah oo ku wajahan Mareykanka. qodobadan waa daawan doontaan insha Allah. Soo dhawaada aragtida qaybta hoose commentiga inoogu reeb, muuqaalka share garee oo nagu soo biir. barnaamijka ayaynu gudagalaynaa, waxaynu ku hormaraynaa haddii Allah awood leh uu raali ka noqdo wararkii ugu dambeeyay weerarka culus ee Ruushka uu ku qaaday caasimadda Kiev. maanta gelinkii hore seeriga digniinta ayaa hal mar laga wada maqlay iyaga oo ka wada dhawaaqaya meel walba oo kamid ah caasimadda waddanka Ukraine iyo waliba hareeraheeda waa magaalada Kiev. waxaana sidoo kale xigay gantaalo culculus oo dhacaya iyada oo hawada oo dhan ay isu bedeshay wada dhimbil ama wada rasaas kadib markii gantaalo Ruushka ay soo galeen hawada caasimadda Kiev. waxaana bilowday nidaamka difaaca in uu isku dayo in uu ka hortago gantaaladaasi, waxaana hal mar dhagaha dadku ay wada maqleen gugaca gantaalada iyo waliba nidaamyada difaaca ah. waxaa la sheegay in Ruushka in ka badan 30 gantaal uu ku soo riday caasimadda Kiev, waxaana laba ka mid ah gantaaladaasi la sheegay inay ahaayeen gantaalada halista badan ee loo yaqaano Kinshal Hypersonic, waxaana la tilmaamay inta kale ee soo hartay gantaaladana inay ahaayeen nooca loo yaqaano cruise missiles, waxaana ay ahaayeen kuwo laga soo tuuray meel istiraatiiji ah. sida wararku ay sheegayaan, gantaaladan waxay ku dhaceen dhowr bartilmaameed, waxaana mar qura dab isqabsaday dhowr dhisme oo xarumo dowladood ay ku jiraan, iyada oo la soo sheegayo in uu jiro khasaare isugu jirta dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad ku sugnaa dhismayaasha. waxaa la leeyahay xarumo dowladeed waxyaalo ay ka soo gaartay saraakiil sarsare, laakiin ilaa iyo hadda lama xaqiijin tirada ama khasaaraha dhabta ah inta ay la eg tahay iyo bartilmaameedka dadka ku dhintay. yacni saraakiishaasi xilalkii ay hayeen, jagooyinkii ay hayeen iyo awoodooda inta ay gaarsiisaneed ilaa iyo hadda lama sheegin. hase ahaatee si lama filaana ayaa waxaa la sheegay in weerarka uu ku dhacay muddo kadib. sidoo kale weerarka inta uu socday dadka shacabka ah waxaa la xaqiijiyay in ay gabaadyo ka dhigteen goobaha loo yaqaano metro, yacni goobaha dhulka hoostiisa ah ee ay isticmaalaan tareenada, halkaas oo ay u arkeen inay kaga badbaadi karaan duqeynta culus ee dhankooda kusoo wajahneed. sidoo kalena waxaa la arkayay kooxaha gurmadka degdega ah oo yacni u gurmanaya dadka waxyeelada ay soo gaartay, daminaya dhismayaasha dabka uu ka kacay. geesta kale dhanka bariga ee Ukraine waxaa la leeyahay waxaa ka soconaya dagaalo aad u qaraar. Ruushka isbeddello istiraatiiji ah ayuu sameynayaa, waxaana la leeyahay ciidamadiisa ayaa toddobaadkii shanaad hore usii socda markii ay Avdiivka ay qabsadeen oo dhanka bariga ah. Ruushka waxa uu raray keedadka qeybaha kale ee hore, sidoo kalena waxa uu bilaabay inay adeegsadaan yacni qadiyad cusub oo ah in horey loo sii aado sida tuulooyin dhaca dhanka galbeedka sida dhanka Avdiivka oo kale. waxa ay la wareegeen halka lagu magacaabo Tonenka iyo Novelesk, halkaas oo la sheegay in ciidamada Ruushku ay gacanta ku dhigeen toddobaadkan gudihiisa. wasaaradda difaaca ee Ruushka waxa ay sheegtay in ciidamadoodu ay gaareen guulo waaweyn oo ay gacanta ku dhigeen goobo istiraatiiji ah oo bariga iyo galbeedka ah, ayna doonayaan inay ku soo socdaan aaga kale oo hor leh. sida hadda wax u socdo, falanqeeyayaasha iyo khubaradu waxa ay leeyihiin waxay jawaab cad u tahay taageerada aan kala joogsiga lahayn ee reer galbeedku ay siinayaan Ukraine, iyadoo la ogyahay in naatana ay soo dhaqaajisay kumanaan ka mid ah ciidamadeeda oo aad u qalabeysan oo dhanka xadka Ukraine loo soo dhaqaajiyay. wararka qaar waxay sheegayeenba in gudaha Ukraine ay soo galeen ciidamadaasi si ay Ukraine uga caawiyaan ka hortagga weerarada gantaalada ah, inkastoo gantaalada ayba hadda bilowdeen. gantaaladan hypersoniga ama Kinshal hypersoniga ah ee uu adeegsanayo Ruushka
waxay ka dhigan tahay meeshii ugu dambeysay ruushka inuu bilaabay inuu adeegsado yacni markan ay ka dhigan tahay jawaabo waaweyn oo reer nato loo dirayo iyo reer galbeed oo dhan loona sheegayo in dagaalka intan iyo kasoo cusnaan doonto xaaladuna kiif isugu imaan doono haddii aanay joojin taageeradan xawliga ah ee hadda ay bilaabeen hubkan la siinayo Ukraine hubkaas oo lagu soo weerarayo gudaha dhulka Ruushka. dhanka kale bayaan ka soo baxay dowladda Ukraine waxaa lagu sheegay inay diyaar u yihiin inay isdifaacaan oo ay sii dagaalamaan oo aanay isdhiibi doonin dagaalkana uu sii socon doono. waxay sheegeen inay u baahan yihiin oo kaliya inay helaan hubka kaalmaatiga ah ee la rabo. hubkaas oo furmaha hore ee dagaalka haddii la geeyo isbedel badan uu keeni doono waa sida hadalka u dhigeen. hase ahaatee Mareykanka iyo dalal badanba waxay dib uga fiirsanayaan hubkooda casriga ah ee la siinayo Ukraine sababtoo tahay taangiyadii 10 milyan lagu iibinayay Mareykanka oo lahaa ee qatarta ahaa ee loo soo daabulay dhanka Ukraine markii la geeyo furmihii dagaalka iyaga oo dhan maalmo kooban ayaa lagu kala baxay oo waa la burburiyay. taangiyadu waa Mareykanka uu ku faanayay taas marka waxay keentay in Mareykanka uu dib u dhigo hubkiisa qiimaha badan يعني قيمها بدن ku fadhiyay in uu soo diro iyo hubkii uu ku faanayay oo uu isaga gadayay dalalka kale Carabta haday ahaan lahayd ama reer galbeedka kale uu yani dhahayay hubkan waa qaali intaas ayuu joogaa yani waa meesha uu gala way galan tahay difaac adag waayay waxa soo dhan maalmo ayaa lagu soo burburiyay xitaa wax kale looma soo dirinay diyaarado yar yar oo drone ayaa loo soo diray kuwaas ayaa burburiyay kuwaas ayaa isku qarxiyay meeshaas ayayna ku burbureen taangiyada casriga ah nidaamyada difaacana hadda waad aragteenoo ilaa hadda kiif ay wax ka qaban laayihiin oo caasimadii dhameed oo la geeyay ay wax ka tari laayihiin oo maalinba ruushka halka uu rabo ayuu ka bartilmaameedsadaa xaaladdu halkaas ay maraysaa dagaalada way ka socdaan bariga wadanka Ukraine xilli walbana waxaa la filan karaa dagaalka in aaga kale uu ku sii socdo bal dhinaca kale haddii aynu eegno isbahaysiga Moscow Tehran Beijing ee badweynta Hindiya waxa uu noqday qatar dhab ah oo ku wajahan Mareykanka. wargeyska lagu magacaabo Nezafisya Maya ee ka soo baxa dalka Ruushka ayaa daabacay in waqooyiga badweynta Hindiya uu ka sameysmay isbahaysi cusub oo u dhaxeeya Shiinaha, Ruushka iyo Iran. ciidamada badda iyo maraakiibta dagaalka ee saddexdan wadan ayaa hadda dhoolatus military waxay ka wadaan waqooyiga badweynta Hindiya gaar ahaan gacanka Oman. sida warbixintu xusayso dhaqdhaqaaqyada noocana waxay dhaceen sanadkii 2018 balse dhoolatuskan wuxuu muhiimad gaar ah u leeyahay Moscow marka la eego colaadda Ukraine isku soo dhawaanshiyaha Ruushka iyo Iran iyo sidoo kale kasoo horjeedka ama jawaab u helista heshiiskii dhawaan ka dhacay Hindiya ee lagu aasaasay marinka dhaqaale ee isku xiri doona qaar ka mid ah dalalka Aasiya iyo waliba Yurub. sida laga soo xigtay wakaalada taas ee Ruushka maraakiibta dagaalka Ruushka ee dhoolatuskani ka qayb galaysa waxaa ka mid ah markabka gantaalaha ee lagu magacaabo Faryak iyo markabka kale ee lagu magacaabo Shaboshinkov. sidoo kalena sida laga soo xigtay warbaahinta Shiinaha maraakiibta dagaalka ee Shiinaha ayaa sidoo kale qayb ka ah dhoolatuska ka socda waqooyiga badweynta Hindiya waxaana uga qayb galaya ilaa 6 markab oo uu ka mid yahay markabka burburiyaha ah ee lagu magacaabo Urimqi halka ciidamada sida gaarka ah u tababaran ee China iyo Iran ay ka qayb qaataan dhoolatuska dhaqdhaqaaqyada la dagaalanka burcadbadeeda sidoo kalena horeyna ay uga qayb qaateen. dhoolatuskan dhinaca badda ee ay ka qayb qaadanayaan ciidamada saddexdan wadan ayaa ka dhigan inuu aad u sii xoogeysanayo iskaashiga military ee u dhaxeeya wadamada cadawga ku ah Mareykanka. sidoo kalena dhoolatuskan waa mid si gaar ah muhiimad ugu leh maxaa yeelay badda cas waxay noqotay goob cusub oo dagaal oo u dhaxeeya Iran iyo xulafada reer galbeedka. halku dhiga la dagaalanka burcadbadeeda waa boor isku qaris la doonayo in indhaha saxaafadda looga weeciyo macnaha dhabta ah ee layliga. sida uu daabacay wargeyska New York Times marka laga soo tago isu soo dhawaanshaha istiraatiijiyadeed ee u dhaxeeya saddexdan wadan Ruushka oo markii horeba ku tiirsanaa Yurub xagga ganacsiga uu hadda doonayo in uu sameysto wadooyin cusub oo u ogolaanaya in uu ka gudbo xanibaadaha ay ku soo rogeen reer galbeedka sabab la xiriira duulaankiisa Ukraine. wadooyinka cusub ee Ruushka doonayo in uu sameysto waxaa ka mid ah qadka tareenka ee u dhaxeeya Azerbaijan iyo Iran ilaa dekedaha Iran iyo gacanka Carabta oo aan ka fogeyn Mumbai oo ah xarunta ganacsiga ee Hindiya. mashruucan ayaa la filayaa in la dhameeyo sanadka 2028. aragtida daawada qaybta committee noogu ramaatanid barnaamijka falaqeynta oo aad ka daawaneysaan marqaad TV qaybta wanaagsan barnaamijka xigeentan ku kulmayno nabadgelyo. assalaamu calaykum waraxmatullahi